warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii la isku yimiday halkaan ee maanta ka dhacay kaas oo looga arisanayay arrimaha fatahaadaha waxa halkaas ku yimiday ururada bulshada ee kor ku xusnaay sidoo kale ururadaas kadib markii laga arinsaday sidii loo maareey karo fatahaada magaalada Beledweyne ku soo laalaabatay muddadii ugu dambeysay waxa lagu go'aamiyay ama ka soo baxay qodobada soo socdo kow in la taageero xalalka uu soo jeediyay xisbiga Daldis oo muujinayo ama noqonayo qoys kasta ee degan magaalada Beledweyne inuu bixiyo $100 qofka dibadda joogo ama shakhsi kasta dibadda joogaan uu bixiyo lacag dhan $200 labo in la taageero guddiga fatahaadaha magaalada Beledweyne dadaaladooda hadday noqon lahayd gacan siinta hadday noqon lahayd garab istaaga hawsha adag ee hayaan in la taageero saddex sidoo kale in loo mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare lacagtii cadadeedu dhameed $1,140,000 ee uu ku wareejiyay guddiga fatahaadaha afar in madaxweyne Waare loogu baaqo lacag dhan $1,500,000 ee ay bixisay dowladda China ee ku maqan dowladda federaalka Soomaaliya in uu dabagalo halkii ku maqan tahay dabadeedna uu ku wareejiyo ama uu u gudbiyo guddiga fatahaadaha magaalada Beledweyne shan in maareynta biyo baxada sida ugu dhaqsiyaha badan looga bilaabo magaalada Beledweyne si ay mar kale u barakicin shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne lix ugu dambeyntii ururada bulshada rayidka iyo xisbiga Daldis ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka in ay safka hore galaan taabagelinta biyo xireenka magaalada Beledweyne